xuska sanad guuradii 56 ee kasoo wareegatay markii xoroobeen gobolada koonfureed ee Soomaaliya sidoo kalena ay midoobeen waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya kana xoroobeen gumaysigii dalka haystay oo ku beegan kooda Luulyo ayaa waxa xalayta lagu qabtay magaalada Cadaad oo xarunta ku meel gaarka Galmudug munaasabada xuska ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug xildhibaano wasiiro saraakiil aqoon-yahano siyaasiyiin dhalinyaro fanaaniin iyo qaybaha kale ee bulshada munaasabada oo ahayd mid arsala loo soo agaasimay ayaa waxa ka hadlay Nabadaan Maxamuud Carab Caalin iyo xildhibaan Yuusuf Xasan Cali kuwaas oo ku dheeraaday ka sheekaynta qiimaha ay leedahay maalintan iyo halgankii dheeraa ee loo soo maray xornimada Soomaaliya iyo sidoo kale halgankii loo soo maray helida calanka buluuga ah sidoo kale waxa iyaduna halkaasi ka soo jeedisay hadallo isugu jira Baraambur iyo dhiirigelin Maxamed Dahab Axmed Carab oo kamid ah dadkii xafladda ka soo qayb galay calankan waxa soo hooyay rag baa u dhamaaday iyo gabdhaha dhiigoodiina u huray dhaqankoodii u daayay waxa jira dad habar iyo odayba uga dhinteen ayagiina koray oo shaqayso kacay oo ku tacliin qaatay waxa walaalaha Soomaaliyeed u sheegaya qabiil wuxuu yahay male waa qurun waa wasaqna waa la dhaqaa qabiilka aan reebaysin maxaa Soomaaliyeed saatan kala daa وما حصل يا حما ساميغا وغاديغان عالانكي باعير يوعد ابوكو داعي عرورتاني عدان مريزاتاهيل dhalinyaro ku xamaasadaysan sidaan aaminsanahay magac diineed ama markii dawladii dhacday ujeedooyin khariban loo dhiibay ayaa astaamahaas baabiyey haddii astaantii muuqatay la baabiyey midda maskaxdu maxay tahay weeye hadda 56 jirsatay soo bilaabata 1960kii bishii Juun iyo midowgii labada gobol ee 1960kii koodii bishii July waxaan la soconaa gumaysiga reer Yurub waxay qabsadeen Afrika sanadii 1884kii Soomaaliya waxaa loo qaybiyay ilaa 5 qaybood in Faransiiska waxaa loo gacan galiyay dalkii la dhihi jiray France Somaliland Djibouti ayaa loo gacan galiyay intii ay socotay munaasabada ayaa waxa kooxaha fanaaniinta xidigaha Galmudug ay ku maaweelinayeen dadka heesay ugu talagaleen xuska kooda Luulyo iyo heesa kale oo wadaniya kuwaas oo qiiro galiyay shacabka iyo mas'uuliyiintii fadhisay goobta waxaana dhammaanba ka muuqday farxad wajiyada dadkii ka soo qayb galay munaasabada madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ayaa ugu hambaliyay dhammaan shacabka Soomaaliyeed xuska maalintan oo ah maalin ku weyn dadka Soomaaliyeed waxaana kula dardaarmay in la raadiyo sidii lagu heli lahaa Soomaaliya oo midaysan runtii guud ahaan waxaan dadkayga reer Galmudug iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dal iyo dibadba uga hambalyeynaya 56 guurada ka soo wareegtay markii xornimada ay qaateen taas oo ku beegan caawa كود اللوليو كنا بيجند كود اللوليو كل 1900 iyo sanadkii 60kii taas oo gumaysiga Ingiriiska iyo Talyaaniga labadaba maaragtay runtii laga xoreeyo nimcada uu nasiiyay iyo horumarka Ilaahayna waafajiyay iyo nasiibka caaw u yeelan inaan xusno inta runtii waa wax aad iyo aad loogu mahadiyo
intaasi kadib madaxweyne ku-xigeenka ayaa salaan sharaf uga qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka galmudug barxadda hore ee madaxtooyada halkaasi oo la suraya calanka xilli ay ku beegneed 6 habeenimo oo ah markii calan Soomaaliyeed oo xor ah la saaray 1 Luulyo 1960 munaasabadan ayaa waxa qayb ka ahayd munaasabada si isdaba joog ah lagu dabaaldegayo xuska maalmaha xorriyadda Soomaaliya gaar ahaan markii koonfurta xorowday iyo midowgii koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya waxaana si weyn munaasabadan lagu xusay dhammaan magaalada Soomaaliyeed oo qayb ka tahay magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka Galmudug Axmed Nur Maxamed Xasan Axmed Suudaani Jubaland TV magaalada Cadaado